فين حريه وعلى ما تاكر والله والله صعب الله يقول برا صعب الله يقول فنيا واحد كلام كثير راي اوي اوي قفله ترى لما دوبك يا goboleedka Jubbaland oo aan saaki soo gaarnay salaam qolay 14 waxaan diyaar u nahay oo ciidankan diyaar u yahay in dalkiisa iyo dadkiisa iyo ma garanaysaa oo wax la qaybsado oo ciidan hadii la yiraahdo amnigu shaqo ku leeyahay amnigi oo ka shaqeeyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta aad noo sameyseen waana idinka mahad celineynaa ciidankan waa ciidankii maamul goboleedka Jubbaland haddana wuxuu diyaar u yahay waana Soomaali dadka Jubbalanta waa Jubbaland dadka laakiin hadee Jubbaland iyo Soomaalida waxa waaye wax kala maarma ma aha Soomaalinimada marnaba lagama tagayo waa wax jira way marka waxaan diyaar u nahay ciidanka waa ciidankii maamul goboleedka Jubbaland kuna soo biiri ciidankii federaalka wuxuu diyaar u yahay صعب يا amniga wax ka qabto سدح diyaar u yahay inuu amniga wax ka qabto shaqadiisa dhinac ka gala ciidan hadii la yiraahdo siyaasad shaqo ku mali dhaqan shaqo ku mali amniga shaqo ku leenahay marka insha Allah aad baan ugu faraxsanahay ciidankani waa kana waa diyaarsan yahay in badan oo kamid ahna way iman doontaa hadii Ilaahay idmo sababta hadda keentay ciidankan iyo aniga wax ku mabo ma aha inaan dawladda Soomaaliya lambar ka helna ma aha inaan dhaqaale helna 20 sano ilaa 15 sano oo cidda caawinaysa ay jirin oo xagga ay badda naga taagan tahay oo xagga ay shabaab naga taagan tahay oo xagga xuduudii Kenya ay tahay oo xagga ay ma garanaysaa ninka odiga ay naga taagan yahay iyo xaalad adag baan soo maray meelaan u ciirsanaa ma haynin haddana isma dilin kalama tagin argagixisada kuma biirin waliba ciidankan iyo mid kale oo ka badan oo aan ka soo tagay in badan oo kamid ah cid macnaha arrimaha amniga ka caawinaysay waa yartahay ciidankan waxaa sameeyay ninka gudoomiyaha degmada Badhaadhe asagana xukumo insha Allah hadii Ilaahay idmo waxaan diyaar u nahay muhiimadeena ma aha lambar muhiimadeena ma aha ma garanaysaa lacag muhiimadeena ma aha jaanis muhiimada aan u socono waxa waaye hada meesheenan ku samarsaneen ninka inta joogo iyo ninka kulbiyo joogo iyo ninka hoosingo joogo iyo ninka buurgaab joogo iyo ninka kudhaa iyo madhawo joogo waa Badhaadhe intaba nin walba meeshiisu ku dhibnaa subax kasta akhbaarta waa iska warhayn حق ما مال قبلات كعاور في عنو أمني كم هلين دولة الصومالية ولقي بين عندما ساري وذلك كان كشغيل ثاني سياد مرنا بسوق جاري واحد كلا تلفونه كفير سنة أو أي كل عانو مركضت نيد السوق وقصان بهم آد بان وقول فرح سنة هاي إن مقرنا ساكي تاجره هلني إن وحاول أمني جا إن وحلاق قفتني من كارك السدي ديران كان واحد يبتكوا هاي أو عنقبتي أو دباتي أتك قبتنا واي وأنا من كارك السدي دباتي كسمعيان dadkan waxa waaye degmada Soomaaliya ugu macnaha badan way degmada haddana marka la gudub gala shacabkeeda iyo amnigeeda yaani waxaan macquul ah ciidan kale ka badan iyo mid kale inta ugu timaadeenba inuu intaas soo gaara waxa sabab u ahaa ninkii sameeyay oo ah gudoomiyaha degmada Badhaadhe fanax aad buu ugu mahadsan yahay uu soo dadaalay annagana waa la samirnay maanta sidaan shalay u heelan maanta u nahay mar haddaad idinku nagu soo biirteen alxamdulillah waxaan rajaynaynaa aan ku soconnaa shalay wixii aan waynay maanta inaan helno oo meesha halka iyo halka aan iska fadhin jirnay tabar baa nagu heysay inta ka ilaali xagga ka leex xagga soo mari saaki waxaan u malaynayaa Badhaadhe in loo socdo oo halka laga duulayo halka la marayo oo nimankii odayaasha ay cagta la marinayo oo degmada 20 sano 30 sano wixii ay weysi haday horumar tahay iyo hadii ay amni tahayba inay heshaan rajaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii dambe dib aan isu wareysanayna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا كنت أسوق